dil kadib markay diiday isu diiday toogtayna kana dhacday xabada xudunta hoosteeda taas oo ay ku weyday xubno kamid ah jirkeeda arinkaasi wuxuu dhacay wareysigii aan la yeeshay gabadha sida tan magaca walaale Faiza Maxamed Cabdi waa gatay dibkan goormu kugu dhacay habeenkii jimcada okay ninkani maxaa idin ka dhaxeeyay waa la sheekaysan jirtay waa gatay waa soo raacday haye meel cid ku geeyay waa gatay isdiib buu ku yiri waa gatay waa la dagaalantay haye xabad buu kugu dhuftay waa gatay wajiga meeshii ka waxaan maxay tahay bistoolad buu kaaga feeray waa gatay intuu kugu dhufan ka hor haye waa gatay xabada dambe xagee kaaga dhacday xagaanay kaaga dhacday waa gatay kan waran dhaawacaaga hadda seebuu yahay هذا والله هذا حنون يربى دريميسا waa gartay Faiza ninkani miya istaqaaneen ما يستقونين واقفتي اوكي لكن مدير باستقانين بافيلايا سوما هبين كاسو سوكين هوريسي واقفتي عبد القادر ايال دها عبد القادر ورسمه احمد اوكي لمبركيسه ما تقانا ماي waxaan u maleynayaa wararku wuxuu igu soo gaareen teleefankaaga wuu qaatay soo baaha teleefankaaga ma qaatay kabahaagina wuu qaatay waa gartay kabahaagina wuu qaatay meeshuu kaaga sutay soo maaha okay arrinkaani foosxun wuxuu ka dhacay magaalada Boosaaso waxaana geysay askari Soomaaliyeed kuma magacaabi kale kana tirsan BIA particular BIA waxa ka codsanaya bulshada Soomaaliyeed anigoo ah nin aqoon-yahan ah kana diidiya arrinkaasi foosxun dhacay waxaan ka codsanayaa arrinkaani kuma dhicin Faiza kaliya wuxuu ku dhici doonaa boqolaal soo socda waxaan ka codsanayaa madaxda Soomaaliya meel walba ay joogaan culimada Soomaaliyeed in arrinkan laga diidiyo ninkii ilaa hadda lama soo qabanin wuxuu ku jiraa gacanta reerkooda waxaan ka codsanayaa bulshada Soomaaliyeed ayaga laga guursaday goodbye